صفوان بن أمية أي عمير بن وهب نك الأورنجري أيكم مركا لبدود ومشركين ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر بالغا سو نقدي تضباطن قالدنا waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nabigu waa qafasho u xiro u qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatan kala xiray Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankaygiiba iga xidhan intu saban oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buu yiri Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma sameyn kartaa haa waan sameyn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raaca buu ka yiri waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer وصار سعودي آلات كان زمن كان إمكاس كتور تورا إن فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصار سعودي مدينة وصار قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجيني قارن مر اللي أمرك عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواكا جيني قارن قرت كسيتي أردو نبيك إلى علي يقول نبيك نواك جوج نبيك كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق مو سعودي خير ما سعودي markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yiri nabi Allah Umar ibn Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya loo soo galiyay xaadu timid buu ka yiri waxaanu imiday inankaygi oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hada wuxuu qabbaha Allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii badar iyadoo tan wadano Saudiga 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xiray ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaadu socoto aniga kaaga warramay oo fariista adigiya Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aanu dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intoon tagaan Muhammad aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabuu haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tiri baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtana ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumeyn adigane ilaahayna waa rumeyn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma
حتى سكايزا بس إلهي سكاكت اليكوك تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب امرأة أبي لهب أيها النبي نوتمد عليه الصلاة والسلام يضع دقح سدته أبي بكر بيوتمد وهل كان فرديا رسولكنا واقف فرديا صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولك لنا عسكو هيان مركز إلى هاي أبو بكر هو صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كواي ستاموكت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري بقى حيسا نستوى ماذا حن بشكسين لها بيتري مركز كان نقطه أبو بكر نبي يا رسول الله ما هناك أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنه هيبل محو حكو أركا إيش وحكو أركا من لنا هاي ما يأمر كي لهيب وحكو أركا دكتو وحكو مغلا ما دكتو أمر كي لهيب هو بانتاين مقشو لوك تادو إنه سعوت إلهي أمر كي سيو باهنتا خالق وإلهي marka ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kasto muslima laga raba ilaahay inuu dhabu garto tasarrufaadka caalamka ilaahay bas kale marka shayga ugu horeeya bini aadanka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ka bilaabanta lillah kun abdan lillah ilaahay adoonkiisii oo dhaba noqo خلاصة القرآن مركا علماء كورمين خلاصة الأديان وحلي وحي الدين سمادا كسود دكتي أردن خلاصة دي وحا لقد القرآن كريم كا قرآن كريم كي بالله سو خلاصة سورة الفاتحة خلاصة دي قرآن لقد سورة الفاتحة يلا خلاصة لبدا عوض علماء سكو كانان إياك نعبد وإياك نستعين خلاص قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلهي جل وعلا واك قرآن كلها صلاة وانو قيبية أنجي أدونك أياك لا قيب سني وصلاة وسورة الفاتحة مقعيق ويان سورة الفاتحة صلاة بالليلة فاتحة الليلة القرآن بالليلة سبع المثاني بالليلة سورة داس وسورة ونبي قولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما كدارته سورة داس سورة لمدة إنجيل لكم يسودقين فرقان لكم توراة لكم يسودقين قرآن كريم كان سورة لمدة كم جرتب رسولكم يري علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري قرآن كردن بمركان يغني وحاو شرح يا وسورة فاتحة سورة فاتحة وحي يدنا كسو أرتي إياك نعبد وإياك نستعين وأمركم أضنك أوليه بسم الله الرحمن الرحيم مركات ترادد الحمد لله رب العالمين مركو أضنك يرادو إلهي بالحمدني عبدي أضنك يجيب يقوم مهديي الرحمن الرحيم مركات ترادنا أثنى علي عبدي إلهي بالأضنك يجيب أماني مالك يوم الدين مركات ترادنا مجدني عبدي أضنك يجيب ويني إياك نعبد وإياك نستعين مركات ترادنا إلهي بال هذا بيني وبين عبدي تاسياني أضنك نقد حيسا الحمد لله رب العالمين مركات تري حمدني عبدي إلهي بالأضنك يبقى حمدي الرحمن الرحيم مركات ترادنا الرحمن والله الرحمة ديسو أدونك أنت اللي جوكتي خلق قردن أي وذا قاعدين ويان الرحيم أن حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقدقوا ويان أثنى علي عبدي أدونك وي أماني بإلهي إليهي مالك يوم الدين مركات ترادنا يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك إلهي ملكك يطلد إسكالها يوم مركات ترادنا وحو إلهي إليهي مجدني عبدي أدونك ويني إياك نعبد وإياك نستعين مركات ترادنا إلهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسياني أدونك نقد حيسا وهجاج أدقون أي عبد وأدونك يجي نبي إنقو أنا جنا كلمة هاي جرجار كاجي يقدا سدان دونا ييل سدان دونا سن أنا كويلي صرت نلاش هالكابي كجرتا لو فكر هذين
qaxootiha ka raadin hay-ad loo shaqo tagana ha ka raadin waddankeena keena uga shaqo fiican waa ka hay-ad u shaqo taga hay-ad buu hebel la shaqeeya hay-ad odaygii islaantii heblaayo labadoodii wiil jaamacadday qalin jabiyeenoo hay-ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa hore hay-addu ka qaadatay yaa miskiin cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruumuu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وتا والنبي محمد أرضي ديسي أرضي كمدا حنقدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دور سكرنا هلصيو سن السارة إسلام كأقص عطا وسد عن سبيل الله يقول نقضو لكن وحينا كور قبيل نبي محمد صحابة ديسو إيمانكو عرب كما الدولي الله إيمانكو قلبكو دولي الله هلكو دولي الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ما هم عرب كدولي الله من ما أدوية لدافسن كرماها ومن قلبكو إيمانكو فريستي وين إلهي كو تعلق سن هو يرى بقرك ما كلا تاين النصرانية دا سوا قلي boqortooyadeedana kala barkeed baan ku siine markaas uu qoslay wuxuu boqortooyadaada oo dhameystirano waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato hadii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelayn buu kaydi wallahi ma facaltu buu darfata ayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelayo buu boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa دوابا نيحدنا هاي بيدي هذا يدل سر ونيحدنا إحدى الحسنيين بيسوق يعني يكون إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكيني هلان وإلهي قرقار كيس الله بلن قادر عنده كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهاد بيد وحبوه ما أركان وحال الله السماية مركا بغركي أمر وحو كبحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqonay nabi yiraahdeen markaas la qabto labadii nin basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo hay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxal loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dhariga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaas ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halka la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoon haysano ka ooyaya buu kaydi naf kaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu kaydi boqorkii baa yidhi kan dilgiis waxay noo tari maaye haska sii dayno waayay sii daaya ma kula tahay buu kaydi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne markaas uu magaal baan madaxa ka dhunkada sagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu yiri hadii muslimiinta ila xidhan aadii sii daynaysid haa waan ka dhunkan hadii kale ka dhunkan maayo buu ku yiri markaas uu waxaga iga dhunko markaas uu magaal baan madaxa ka dhunkada anoo asxaabtii nabi maxamed kamida ragga uu sii daynaya Soomaaliya waa ka dhunkan ila bariba jihaad baan ku soo celinay kala bixinayna عجيب أصحاب الرسول رئيس وقالين عمر بن الخطاب صود ويي إنه قال ماذا حكى صود كذا أيا وش شيء جايب على يلو رجل الله السعودية عمر كويري عبد الله بن حذافة هدون كانوا هالسلام إنه هالصود وين وايو قال ماذا حكى صود كذا إنك أنا هبل دبد وبحي
hebel hee dibadda u baxay hebel hayad buu la shaqeeyaayo waa iskugu toostay gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaad tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa Umar ku leh gaal buu madaxa ka soo dhunkaday hasalaamin Umar baa yiri balukaadii ha wareystay sidee ku dhacday inaad nin gaal madaxa ka dhunkata wuxuu iyaka ku soo daayay buu yiri si markaa uqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yiri haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah ibn Hudafata wa ana abda'u bidhalika buu yiri qof kasta oo muslima waxa xaq ku abuuri Umar in maaragtana Abdullah ibn Hudafa oo madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yiri anigana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonaya markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay sidii doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladhiina aamanuu wa tadma'innu quluubuhum bidhikri illaah ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلى هيري الذين آمنوا كوا إلهي رميي قلوب تودو طاعد إلهي ذكر إلهي أي كحصل يسو إلهي بعد ألا انتبهوا إلهي بعد إنه نصلحين يا إلهي بعد إنه يريا إلهي بعد إنه خير ميريا ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا ومن أصدق من الله قيلا إلهي بعد كوا الرمايو كله وقلبي الناس وحق لك حصل مايو aniga macrifadadu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaysta qalbigu quraanku ku raaxaysta qalbigu dhikriga ilaahay buu ku raaxaysta qalbigu taacada ilaahay buu ku raaxaysta naam nina aymada muslimiinta kamida ayaa oran jiray khamsun min dawaa'i alqalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawat alqur'aan bitadabbur quraanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaam al-layl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa taala la hor joogsado wa tadarru inda as-sahar iyo waqti as-sahar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wa ala lana munaajoodo wa khala'u al-badn iyo calooshaada mar walba badnaata wa kathratu as-siyam bi culmadu leeyahay inuu qofku soonkiisu bato wa mujalasatu as-salihin dadka war wanaagsano la fariisto shantaas ay culmadu raadeen qalbigeeda weysa tilawat al-qur'ani بالتدبر كان القرآن ما شاء الله ونسك آخرين تدبر كيف أنا جمع أصحاب رسول رضي الله عنهم لقى يا أبا هل آية القرآن سدها بينك أقول علينا يا أبو برياي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سفيان الثوري رحمه الله آية القرآن كهبينك مركو صلاة الليل كي حد مركو قاري وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعيسى إلهي كملينين أي كلا كل ما بنك قيامه هدو لها خير بان وطا ما خير قيسي ماها أرنتو يكوين تاي صلاة بان وطا صلاة دوالو قبت بهذا لا شك لكن مؤمنكو هلك أمركو بنك قيامه إلهي هرجو اقصدو صلاة يسون قيسي ايقي ماي إلهي الرحمة دي صوبو ما انت ايقا يغفك مؤمنكو إلهي الرحمة دادون بوليه آيات القرآن كواغو غبريه أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركو نبي أنه حنوصدو حنونك لا دعي أي نبي قال له يري صلاة دي باتاق النبي الله مركاسو النبي قال أبو بكر وشيغا أمد صلاة كبحيه عائشة رضي الله عنها وأبتاقني النبي آيات كتري إن أبا بكر رجل رقيق أبو بكر وأن قلب جلع سويان إذا قرأ القرآن غلبه البكاء هدو قرآن كأخرينا وهنتي سآيات قرآن كغالب نقطة وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسكيد كي النبي الصوق علي وعوارك إن ير وصورة الطور كنت كان قيام الليل كي قرآن كي سيبو دقيستي مركو قاد يركي يرى إن عذاب ربك لواقع عذابك ربك وكيد عدون ويان آيات عمر مركو قادينا دولكو كدع عمر بن الخطاب انتو الله قادي أيا قرقي سيل لقيي
بالكو دبو حنوسنا حنون قيس ماشو كجي مدينة لما أوجين مقداد رضي الله عنه صحابي لو رجل مقداد بن الأسود هبينكي مركو حاسكي سأكسر حدا بيتري سداس أوجل جلنجرة سداس هبينك أوجل جلنجرة سداس مركز يكتر ورمحل قال جلن مات بكتا مات سيحتي ده مركز ورجل عبسده حصوصت أنا حصوصنا النار تجهنم أيا هرددي الراحة ديك قاضي ورجلي يخافون قرآن كي آخرين يكو لكن تدبر بيكو آخرين تفكر بيكو آخرين لقى يا بهال آيات القرآن هبين كادن كسو جد النبي عليه الصلاة والسلام وكي أبي بلال بوي مد صلاة دي مركي قاعدي يا رسول الله صلاة دي بلغا سوغيا والنبي يقول للمدى كدادتي مالين تاس قرقيس انتي دافتي لابتي سي قويسي هل كي وجه قولك كهين وي قويسي مرقاس النبي يقول يا بلال حليت ولا آياتها القرآن يقول صدقي ويل لمن قرأها ولم يتفكر إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة آل عمران آياتها سحلي يقول صدقي النبي يقول نك آياتها أخرية إن أنت تدبرون أن تفكرين كاسو خسارة ورسولك يقول تدبر صدح عمل markaad hayso hadaad qalbigaaga khushuucad ka weyday bay culimadu raadeen qalbigaagaasi uu dhisay heerada soo dhaweeyay quraanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid quraanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexda marxalo markaad ku jirtid hadii ilmadu ay ka daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimadu leeyihiin qalbigaas uu bukaaye qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilaahay alla urtagin قيام الليل وسماء الصالحين إن هبينك إلا كعو الله ينسي كل جن كي كهلا بدس كي صفات ونكس النجلة الله لين نسوي سدين يا مي هذا الكانوا حنوجه الله يا إني أنا نقول شيء ما دين بندونا يا إيمانك وحنوجه الله إيمانك إنه يزيد دونا يا صلاة وحنوجه الله يا صلاة حقيقة إلهي نوسيان دونا يا صفات ونكس وحنوجه الله يا صفات إلهي نوسيان دونا يا والله وما فريس دينا وعدي أنا وأنا الكاو فريس نفسي دينا وعدي قيام الليل حسن البصري رحمه الله من أسمر أبوها ولكن وجهك سنور كبحايو مركز سألقول يا شيخ يا أبا سعيد بالقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد واسدي بالقول دتك واتكنور وينتهي وعلى ساعدها أي هردان أيان إلهي لم يناجود أبو لانكم مضوانا سوجي يقولون النور ها ساعدها دتك أي هردان كعو ولو لا برك على النقطة لا برك عتكو ولو ركعت وتر إذا أنا كنت ضروري وتر هذا دبوا دقو مركز شرفاء الناس دتك مال قبيلنا ذا يدتك مدح ذا يدتك تجارته أي دلين هي وجهاء الناس بمجرى مجلس كيسة وعلى قول يا حسن يا أيها الإمام dadku agtaada maxay ka soo doonaan baa lagu yiri madaxda oo dhan baa ku imanaysa wuxuu yiri waxay haystaan ma ka kaaftoomay waxaan haystana waa u baahdeen buu yiri waxay haystaan baan macna adduunyadooda ma qiimeeyo anigu lacagtooda ma qiimeeyo qabyaaladooda ma qiimeeyo siyaasadooda ma qiimeeyo anu ilaahay baan qaabilay cilmiga ayaan u jeestay aakhiradan u jeestay diintan u jeestay jannadan u diyaar garoobaya naar baan ka cabsanaya ilaahay xaqiisan u dhaqaaqay marka waxay haystaan markaan faraha uga qaaday waxaan haystaan iyaga u baahday guud والتضرع عند السحر مؤمنك waxa laga rabaa habeenkii saacadaha waqti saxarka inaad ilaahay la munaajaat لا maxay munaajaat ya Allah albaab kasta u xirmay albaabkaaga furan ilaahu naxariistaadaan u baahana waa saacadaha ilaahay jalla wa ala uu nabigu sheegay samada adduunyadu yimaada nuzulan kama yaliqu bi jalalihi markaasuu ilaahay odhanaya ayaa wax weydiisanaya hansiiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe haddaan saacadaha kacna ka warramo ilaahay barino soo baahi ma lihin saacadahaas مناجات هبن
ayuu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu qiyaamkii uu bilaabay ayuu nabigu laba aayadood oo kaliya sidoo ugu celcelinayay ayuu waagu ugu dilaacay rasuulka in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim labada aayadood aayadna waxay ku jirtaa suuratul maa'ida awaakhirkeega aayadna waxay ku jirtaa suuratu ibraahim laba nabi ulul azmiya hadalka banka qiyaama ay ku orani doonaan ilaahay hortii tabaaraka wa taala ayuu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa nabiyullaahi ciisa alayhi salaam banka qiyaama marka la joojiyo isagii hooyadii ee la keeno reer bani israa'iil oo wixii isaga dabadii yimiday oo dhan isagii hooyadii qaarkood ilaahay ay ka dhigteen caabudayeen ayaa banka qiyaama la keeni deedna waa ka ilaahay weydiini doona orani doona yaa ciisa ibn maryama a anta qulta linnaas ittakhiduni wa ummi ilaahayn min duni illah nabi ciisa ya ciisa hatta ya nabi allah la oran maayo ya rasuulullah la oran maayo ya ruuxullah la oran maayo ciisa ibn maryama war ya ciisa ina maryama baa la oran doona maada ku yiri reer bani israa'iil aniga iyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigto naabuda maada ku soo yiri قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم